حسنو waxaan kula darmayaa qosolka iska yaree xasanow meesha maanta qosol ma joogto dadka Soomaaliyeed maanta dhibaato haysata abaara haysata waa rafaadsan yihiin wadooyinka mataqaana waa bursan yihiin xaalada adag oo isbiirsaday isla markaana shacabka Soomaaliyeed u sooweynayeen doorashada waqtiga dib uga dhacday ayaa xalalta soo gabagabootay waxaana madaxweynaha tobanaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya loo doortay Xasan Sheekh Maxamuud sidoo sheegay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe haddaba shacabka magaalada Muqdisho ayaa waxa la dhaxqaadnay mikrofoonka Ogaal TV waxaana wax ka weydiino guusha Xasan Sheekh Maxamuud kuwan ayagoo ka warbixinaya sida uu arkaan magacaygu waa Cabdinuur Aadan Cilmi aad u mahadsan tahay waxaan soo dhaweynaynaa horta oo madaxweynaha la doortay Xasan Sheekh Maxamuud boqolkiiba boqol sababtu waxay tahay meeshan wax loo baahnaa madaxweyne lagu doorto waana helnay alxamdulillah waana soo dhaweynaynaa waxa xigo ninka laga doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asagana aad baan maaragtay ugu mahad celinaynaa wax qabadkiisii iyo sidii uu halkan u keenay doorashada iyo wuxuu qabtay Xasan Sheekh Maxamuud kulli howlaha hortaalo hawsha hortaalo intii wixii hor u qalday inuu hadda saxo iyo wixii haddadaan u baahan sixid inuu sii wado halkeeda ka sii wado oo wax walba uu wanaajiyo intaasaan dhihi lahaa waana soo dhaweynaynaa xalay doorashada aad ay noo dhafrisay boqolkiiba boqol waayo waxa weeye qofba wuxuu taageersanaa annaga waxaan taageersanay shacab haddaan lahayn Maxamed Cabdullaahi Farmaajo balse ninka meesha soo fadhiista mar walba waxa weeye waa madaxweynahanagii waxaan laga rabaa Xasan Sheekh Maxamuud wixii qaldamay inuu maaragtay uu hadda saxo oo wixii hore qaldamay ay si dibdooba u soo laaban xalayna kullay wixii qornaa oo Ilaahay agtiisa ku qornaa baa dhacay laakiin sida anaga jecleen waxay ahayd Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu kursigan noogu soo laabto horta Xasan Sheekh Maxamuud waxa weeye xagaf badan hore uga dhacday ciidanka kala kamid ah dhibaatooyinka maaragtay mushaarka kamid ah shaqaaliin mushaarkooda kamid ah dhulalkii la boobay oo maaragtay la bixin jiray kamid ah waxyaalo tiro badan ay jiray oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu iska xanibay waxaas oo dhan inuu waxa la rabaa uu ka faafta maaragtay iska adkeeyo Xasan Sheekh Maxamuud badan ay jirtay oo lagu tuumayay hadda waxa la rabaa maadaama uu noo soo laabtay oo madaxweynaha naga yahay waxaas dhan inuu maaragtay qadka ka saaro oo nin daacad oo u shaqeey wadankiisa uu noqdo oo maaragtay shisheeyaha iyo balaayadan wadanka aad u jecel inay fargeliyaan oo sida Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kale ta dhinac iskaga saarayagana bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamuud Maxbuub Mursal aad iyo aad u faraxsanahay barnaamijka inaan ka hadlo dareenkayga muujiyo saaka waxay baa noo bariyay alxamdulillah bashbashi barwaaqo xilliga ugu fiicneed doorashada ugu fiicneed xilligii oo macnaha ugu asaaqaadka fiicneena isleeyahay Xasan Maxamuud waa soo dhaweynaa in kastoo taageero Farmaajo ahay oo laga badiyay aad iyo aad u faraxsanahay waxaan rajeynayaa in yani madaxweyne oo mustaqbal fiican iyo horumar fiican iyo shaqo abuur wadooyinka xirxiran magaalada isku caburan Xasan Sheekh anada jaanis waaye jaanis kale oo haysta in jaaniskiisa uu aad ugu faa'iideysan doono waxyaabihii hore oo ka khaldamay oo waxyaabihii hore oo sixi waayay in hadda oo soco aad iyo aad u rajay waxa kamid ah koow dhalinyarada in shaqo abuur loo sameeyo labo waxa kamid ah dugsiga farsamada inuu dhalinyarada u dhiso xamar dugsi farsamo kuma yaala hadii ay ku yaalaan waa hal iyo laba oo lacag qaali ah oo lagu dhigto Xasan Sheekh Maxamuud waxa aad iyo aad u xasuusinaa jaaniskan anoo aad iyo aad ugu faa'iideysanayo anoo qiireysan Xasan Sheekh Maxamuud hadoo warkaygu ku soo gaaro ama oo aad daawatid ama oo maalin yani jaaniskaas inaan nooga faa'iideysid dugsiga farsamada inaan noo sameeyay dhalinyarada in wax qabad ay u sameeyay taariibka ka joogsadaan xilliga ugu rajo fiicnaan waay in Xasan Sheekh Maxamuud dhalinyarada jaanis ugu faa'iideeyo bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam aniga waa nabadoon Mas'uud Sheekh Mas'uud Cabdullaahi Afrax Soomaaliya maanta waxay u tahay maalin mugdi ah oo madow sababtoo ah waxa weeye nin Soomaaliya oo ciidamadii Soomaaliyeed mushaarka siin jiray oo wadani ah ayaa qadka ka baxay waxaana qadka soo galay in mushaarka ciidamada iyo mataqaanaa shaqaalihii dawladda aan waxba siin jirin oo gaajo ku dilay marka aad iyo aad baan ugu xumahay marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryayaa
inuu haddii asiga uu soo laabtay bal waxaa la yidhi madax midi saawir iyo madax muuqal lagama sabree bal inuu mataqaanaa shaqaalihii iyo ciidamadii dowlad ku noolka ahaa inuu mataqaanaa ninkii ka horreeyey asaga wixii uu mataqaanaa maaragtay oo mushaaraadka uu siin jiray inuusan ka jarin inuu wax ugu sii daran maahane maxaa yeelay xasan sheekh anigu waan garanayaa adduunka intuu mataqaanaa adduunka inta uga hartay wuxuu cuni lahaa waa haystaa maanta shaqaalada mushaar dowladeed iyo ciidan mushaarkiisa iyo shaqaalo dowladeed iyo wax mataqaanaa maaragtay wax laga raadiye ma aha marka haddii uu rabo mustaqbal fiican oo soomaalida mataqaanaa maanta qalbiga ka jabtay oo gudo iyo dibo oo maanta Kenya mataqaanaa laga bannaan baxayo oo laga faraxsan yahay Soomaaliyana ay naxsan tahay waxaan u sheegayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud in uu mataqaanaa arrintaas barta madow ah oo iska tiro oo shaqaalaha dowladda iyo ciidamada mushaaraadkooda iyo balaankii oo farmaajo u sameeyey oo ka leexdo asagana wuxuu ugu sii dari karo ugu sii daro waa raganimo ugu sii daro maxaa mataqaanaa maaragtay mushaar iyo mataqaanaa ku kalifaaya in mataqaanaa weynaa tahay bil sii dhacaysaa tahay aakhira loo socdaa adduunka qofkaan mataqaanaa qabrigaaga qof kula gelaayo male walaa damjiidaan kula gelayn walaa nin mataqaanaa maaragtay qof kula gelaysa male adiga keliga ayaa gelaya adagaana lagu weydiinayaa dadka masaakiinta abaaraha iyo baahida iyo colaadda iyo rafaadka iyo mushaakilka mataqaanaa maanta haysta in mataqaanaa maaragtay xasanow waxaan kula darmayaa qosolka iska yaree xasanow meesha maanta qosol ma joogto dadka Soomaaliyeed maanta dhibaato haysata abaaraha haysata waa rafaadsan yihiin wadooyinka mataqaanaa waa bursan yihiin haddii ilaahay kuu roon yahay Soomaaliya oo dhan mataqaanaa maaragtay mushaakilaa jira mushaakilkaas ilaahay waxaan kaaga baryayaa mataqaanaa inuu kuu fududeeyo laakiin qosolka yaree bismillaah magay waa ugaas maalingaaw oo ku magadheer dhakal maalingaaw sida aragtaa doorashada xalay eedeedaan ka faraasana waxa meeshan u habaran xasan sheekh maxamuud madaxweynaha Soomaaliya markii hore waa farmaajo taageersanay laakiin haddii lagu guuleystay madaxweynaha subxaanahu wa ta'ala hambaliyo bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim awalan horta ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaan mahadiyaan awalan ilaahay subxaanahu wa ta'ala mahadis kule mahad kale ma mahadiyaan dhabaanada sharafta leh oo in sheegad maanaha dadaal muujiyeen in sheegad cariirigi maadaama ay noobiyeen iyada kama haysantiin isbaaradii wadankan yaali way biri ilaahayna oo gursi ilaahay mahadinag in sheegad may kala siin sheegay intii odayti iyada kama haysantiin intii odayna iyada kama haysantiin dawladda Soomaaliya sheegay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ogaal TV waa idin soo dhaweynayaa barnaamijka aad maanta ka qayb qaadanaysaan xalay waxaa dalka lagu doortay musharax madaxweyne xasan sheekh maxamuud xalay 6 saac wixii ka horeeyay wuxuu ahaa musharax wixii ka dambeeyay wuxuu noqday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay mudane Soomaali heshiisaha dunidana la heshiisa eraygaas waxaan ka rabnaa in aad ka mar dhaliso annaga haddaan nahay dhalinyarada gaadiidka bajaajka ku shaqaysato caqabad ayaan qabnaa 5 sano oo la soo dhaafay magaaladu waa ay naga kala xirneed jidadka dhagxaan ayaa naga tiilay shaqo ma aanan helin meel aan ku shaqaysana ayaan weynay madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa inuu dhagxaanta naga qaado jidadka noo furo magaalada waxaan rajaynayaa insha Allah taala isbedel casri ah inuu ku yimaado hadal badan ee halma buuxsho xasan sheekh maxamuud garabkaaga ayaan taaganahay horena waan u taagnayn haddana waan taaganahay mudane guul ayaan ku leeyahay magacaygu waa Abbaas Abdurrahmaan waxaan dhihi lahaa madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud inkastoo aan taageersanaa maxamed abdullaahi farmaajo oo laga badiyay caawo ilaa xalay u taagnayn oo laga badiyay madaxweynaha xasan sheekh maxamuud waxaan dhihi lahaa soo dhawow mudane madaxweyne oo ah madaxweynaha cusub waxaan dhihi lahaa Allah ku taageeri lahaa dalkaas wadi lahaa waxaan u daawanahay si fiican u fadhiyay taageero farmaajo ahaa wana laga badiyay laakiin inkastoo laga badiyay haddana waxaa la doortay muwaadin Soomaaliyeed waa ku faraxsanahay inkastoo la doortay la iga badiyay macnaha danta raygooda waxay u qabeen inay helaan xasan sheekh maxamuud wana helaan ma sha Allah la qabto dalka waxaan dhihi lahaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وأحمد محمد حسين صومالي ملك استوجبت وسلامية
dal iyo dibad meeshay joogaan way ku salaaman yihiin awalan madaxweynaheena jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waan salaamayaa gaar ahaan u salaamayaa waxa loogu baahan yahay madaxweynaheena dalkan waa kala daatay dadkan dadkiisa waa kala maqan yihiin dalkan isku soo celi madaxweyne mudane madaxweyne waa codsi dadkan dadkiisa kala maqan isku soo celi mideeda kale waxaan ka codsanayaa madaxweyne in dalkan aa wax u qabatid ninkii dalkan uu aayi lahaa inaad naqatid waa muhiim waa mid loo baahan yahay musuqmaasuq waa inaad la dagaalantid amniga waa inaad soo celisid kala dambeynta sharciga dastuurka inaad dhamaystirtid Somaliland waa dal Soomaaliyeed oo 30 sano iyo ka badan midnimo macnaha ka maqan waa inaa midaysaa Soomaali meel kasta joogaan Soomaali miday mudane madaxweyne waa codsigaas ku soo jeedinaya si kastaba xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya isagoo soo noqday madaxweyne sideedaad haatana madaxweynaha 10aad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamuud axmed shaasha ogaal TV muqdisho